Bismillahirrahmanirrahiim. Daawadayaal ku soo dhawaada Kuwara Channel. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah ciidamada Shiinaha iyo Hindiya oo israsaasayn dhaxmartay cudurka coronavirus oo mar kale ku soo laba kacliyay dalka Shiinaha. Markab dagaal oo ay Iran leedahay oo si aan ula kac ahayn loo burburiyay. madaxweyne Trump muxuu ka yiri dhaliishii uu u jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Hussein Obama maxbuuskii laga sii daayay ee awoodi waayay inuu gurigiisa ku laabto. qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba goordhow. fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay Kuwara Channel subscribe saar si aad u hesho warar xaqiiqda ku saleysan iyo barnaamijyo ku xiiso geliya. mar kale waxaad ku soo dhawaataan warkiyo intaas ka faahfaahsan. tobaneeyo ciidamada Hindiya iyo Shiinaha ayaa xabado isku weedaarsaday xuduudda ay wadaagaan sida ay warbaahinta Hindiya sheegayso. 4 askari ayaa Hindiya ka dhaawacantay halka Shiinuhu ka dhaawacmeen 7 askari sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada ku sugan gobolka xuduudda ee Sikkim. taliyayaasha deegaanka ayaa khilaafkan oo dhacay maalintii Axadda ahayd xaliyay. labada dal ayaa khilaafka xuduudda ay wadaagaan weli taagan tahay. Shiinaha iyo Hindiya ayaa dagaal la xiriira xuduudda wuxuu dhexmaray 1962. dalka Shiinaha waxaa mar kale sare u kacday tirada uu soo ridanayo cudurka corona kadib markii isniintii laga diiwaan geliyay dalkaasi 17 kiis oo cusub. 5 ka mid ah kiisaskan waxaa laga diiwaan geliyay magaalada Wuhan. magaaladan oo ah goobtii uu cudurka COVID-19 ka soo bilaabmay ayaa waxaa kiiskani ay yihiin kuwa ka dhashay gudaha magaalada Wuhan oo aan meel kale uga iman. waa tiradii ugu badnayd oo laga helo Wuhan tan iyo intii shaaca laga qaaday in cudurka laga soo afjaray magaaladaasi Wuhan. saraakiisha ciidamada ayaa rumaysan in 5 kiis ee la helay ay yihiin shakhsiyaad hal goob ku nool. magaalada Wuhan oo xudun u ahayd cudurka corona ayaa dhowr maalmood wax kiisas ahaan laga diiwaan gelin. dalka Mareykankana waxaa 24 saac ugu dambeeyay cudurka u dhintay 776 qof taasi oo tirada sii kordhinaysa. waxaa tirada guud ee Mareykanka cudurka ugu dhintay imika gaartay 79526 ruux. dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay dawladda ka digtay in mawjad labaad oo cudurka corona laga cabsi qabo. dalka Australia labada gobol ee ugu weyn dalkaasi ayaa waxa maanta dib loo furayaa iskuulada. ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa dhankiisa sheegay in dawladda ay dejinayso qorshaha si tartiib ah xayiraada looga qaadayo goobaha waxbarashada ee dalkaasi. 19 badmaaxin ah ayaa ku dhintay 15 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii mid ka mid ah maraakiibta dagaalka Iran oo si aan ula kac ahayn gantaal ugu dhuftay markab kale oo isla Iran ay leedahay. sida uu baahiyay telefishinka Iran mid ka mid ah maraakiibta dagaalka Iran ayaa qoosiyay markabka kale oo isla Iran leedahay. warar horay u soo baxayay ayaa sheegayay in tiro ciidamada badda ah ay dhinteen kadib markii mid ka mid ah maraakiibta dagaalka Iran oo lagu magacaabo Charman isla markaana tijaabinayay gantaal nooca maraakiibta lagu burburiyo ah uu gantaalkaasi si aan ula kac lahayn ugu dhacay markab kale oo isla Iran lahayd. wakaalada wararka ee dalka Iran ee Fars ayaa sheegtay in mashaqadan ay dhacday xilli ay ciidamada badda ku guda jireen dhoolatus military oo Axaddii ka socday gacan biyoodka Hormuz. ciidamada qalabka sida ee Iran ayaa si joogto ah u qabta dhoolatusyada military sida ay sheegayaan warar aan rasmi ahayn. markab dagaal ee Jarman oo ah mid ay ku howlgalaan ciidamada ilaalada gacanka Iran ayaa ka hormaray xilligii ay ahayd in gantaalka la rido isla markaana waxa uu haleelay markab kale oo lagu magacaabo Konarak oo ka soo socday goobtii bartilmaameedku ahaa. muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto ayaa muujinayay wax lagu sheegay dhaawacyada badmaaxin lagu qaadayo gaari ah nooca gurmadka degdega. bishii January ciidamada ilaalada gacanka Iran ayaa si aan ula kac ahayn u soo riday diyaarad rakaab meel u dhow caasimadda Tehran. waxaa diyaaradaasi ku dhintay
dhammaan 176 qof ee saarnaa. ugu dambeynna waxaa dowladda Iiraan ay qiratay inay iyadu ka dambeysay. dhacdadaasi ayaa timid xilli cirka isku sii shareereysay xiisadii u dhaxaysay Iiraan iyo Mareykanka kadib markii ay Mareykanku dileen abaanduule sare oo ka tirsanaa ciidamada dalkaasi Iiraan. bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo cusboonaaday xiisad labada dhinac, waxa uuna Mareykanka Iiraan ku eedeeyay in ay dhibaateynayso ciidamada badda Mareykanka ee ku sugan gacanka Carbeed. Trump muxuu ka yiri dhaliishii Obama u soo jeediyay? madaxweyne Trump ayaa maalintii Axadda ahayd soo cusboonaysiiyay weeraradiisa ka dhanka ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Barack Obama. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray Obama Gate isagoo ku xiray kiiskii FBI-da ee hadda la tuuray ee sida aadka ah loogu dhaleeceeyay maareyntiisa Michael Flynn. isbuucii la soo dhaafay heer ilaaliyaha guud ee William Burns ayaa kiiska ka dhanka ahaa Flynn daaqada ka tuuray taliyihii ugu horeeyay ee Trump dhanka amniga. hadalka Trump ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Barack Obama uu madaxweyne Trump si adag ugu dhaliilay qaabkii uu u maareeyay faafitaanka cudurka coronavirus. Obama ayaa qaabka ay dowladda Mareykanka u wajahday cudurka ku tilmaamay musiibo ba'an oo jahwareer abuurtay, waxa uuna dhibaatada ka dhalatay cudurkani ku eedeeyay qaabka dowladnimo ee maamulka madaxweyne Trump. Obama oo la hadlay kalkaaliyaashiisii hore iyo taageerayaashiisii ayaa sheegay in dhibaatadu ay tahay in maamulka Trump uu ku fikiro qaab ah maxaa iigu jira, sida aaweedna uu ku afceliyo dadka kale. daawadayaal, wararkii aad kala socoteen Kuwara channelna waa naga inta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe sar kambaleelka furo si aad u hesho wararka maalinlaha ah ee la soo geliyo iyo barnaamijka ku xiiso geliya.